Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Markii uu jirsaday Diyaa 8 sano, waxaa geeriyooday aabihiisa. Waxaa gacanta qabtay abtigiis oo kafaalo qaaday noloshiisa iyo waxbarashadiisa. Sanad ka bacdi, waxaa la guursaday hooyadiis. Ninka guursadayna wuxuu shardi ka dhigay in Diyaa uusan la noolaanin. Diyaa wuxuu aaday guriga abtigiis, wuxuuna ka helay nolol aad u wanaagsan. Wuxuu baray umuurta diintiisa, wuxuuna xifdisiyey Qur'aanka Kariimka. wuxuu ku barbaaray Diyaa barbaarin islaami ah oo saxiix ah, wuxuuna si aad ah u jeclaaday abtigiis. Markii uu bogay jaamacadda sanad kadib, wuxuu go'aansaday inuu guursado gabadha abtigiis, midaasoo ku raacday iyadoon ka labanlabayn. Waxayna ahayd qofka ugu badan oo si dhab ah u yaqaano Diyaa, jaceylka uu qabo aabaheed iyo baarinimada uu u hayo hooyadiis. 2 sano ka bacdi guurkooda, Diyaa xaaskiisa waxba umaysan dhalin. Waxay aadeen asaga iyo xaaskiisa isbitaalka si loo ogaado qofka cilladda qabo. Diyaa ayaana u horgalay dhakhtarka, wuxuuna ogaaday natiijada, wuxuuna gartay sababta inay tahay xaaskiisa, asagana uu bad qabo. Wuu dhoola cadeeyey Diyaa, wuxuuna ku xamdiyey Allah subxaanahu wa tacaala. Kadib ayuu ku yidhi dhakhtarka, waan baxayaa si aan ugu yeero xaaskayga, laakiin waxaan kaa rabaa inaa ceebta aniga ii yeesho, iyadana ay tahay qofka caafimaadka qabo. Waa uu u tegay Diyaa, wuxuuna ka soo waday xaaskiisa qolka sugitaanka haweenka. waxayna u soo galeen dhakhtarka, kaasoo u sheegay in sababta ay u dhali laayihiin ay tahay cillad haysata ninka, uuna u baahan yahay daweyn fara badan. Diyaa wuxuu muujiyey murugo iyo ku qanacsanaan ridaha alle iyo xukunkiisa. Intaas kadib waxaa tagtay 4 sano, labadoodana way isku sabarsanaayeen ilaa ay ka tiri xaaska Diyaa, waxaan kuu dulqaatay muddo dhan 6 sano. Hadda waxaan doonayaa furitaan. Waxaan rabaa inaan guursado nin kale si aan u arko ilmahayga. Sidaa darteeda sanadkan inta ka dhiman keliya ayaan kula joogayaa. Waa uu ku waafaqay. Yididiilada uu ku qabo Rabbi aad ayay u weyneed. Maalmo ayaa ka soo wareegay. Waxaa ku dhacay xaaska kili xanuun, waxayna canaan kala dullacaysay ninkeeda. Iyada oo ku jirto isbitaalka, ninkeeda ayaa ku yidhi, waxaan doonayaa inaan dibadda aado si aan kugu soo raadiyo kili. Maalmo kadib waa uu soo wacay, wuxuuna u sheegay inuu helay nin Hindi ah oo ku tabarucay kilidiisa, uuna imaan doono waqtiga ugu dhaqsiyaha badan. Intaan camaliyadda la samaynin maalin ka hor, waxaa yimid ninkii tabarucay kilida. Ninka wuxuu u sheegay xaaskiisa inuu baxayo si uu u soo dhammaysto shaqo u dhiman. Way ka carootay, waxayna ku dhahday, waxaan gelayaa camaliyad aad u halis ah, waad safraysaa, waadna iga tegaysaa. Qalliinkii waa lagu guulaystay. Isbuuc kadib ninka waa uu soo noqday, waxaana ka muuqday daal fara badan. asaga ayuu ahaa qofka kilidiisa tabarucay, laakiin Hindiga wuxuu ka shaqaynayay shirkadda asaga uu ka shaqeeyo. Cidna ma ogeyn arrinta, xataa abtigiisa. Camaliyadii kadib 9 bilood, xaaska waxay qaaday uur, waxayna dhashay canug. Dhammaantoodna waxay galeen jawi farxadeed. Ninka waa uu safray si uu u soo qabto shaqo u dhiman, wuxuuna hilmaamay buuggiisa uu ku qoran jiray wax walbo. Meesha uu saarnaa ayuuna uga tegay. Way akhrisay, waxayna garatay in ninkeedu uu caafimaad qabay, iyadana ay ahayd sababta ay ilmo u dhali waayeen. Sidoo kale waxay ogaatay in kilidiisa ku tabarucay. Way iska oysay oo hinaad u daran. Maalinkaas laga bilaabo, mar kasta ay hor fadhiisato, dhulka ayay fiirinaysay, mana aysan awoodin in argeed ay ku taagto asaga, sababtoo ah waxay xasuusanaysay xumaanta ay u geysatay iyo sida uu ugu sabray uguna dulqaatay. Wuu u soo dhowaaday maalin maalmaha ka mid ah, wuuna u dhoola cadeeyey, wuxuuna ku yidhi, waxaan isku dayay inaan dib u soo celiyo dhibic yar oo ka mid ah badda jaceylkii iyo karamkii uu ii sameeyey aabbahaa. Fadlan qisadan macaanka badan haddaa ka hesha like saar. haddaa inagu cusub tahay, ku soo biir oo subscribe dheh. Dunida maanta ha moogaanin, gambareelkan furo si ay kuu soo gaaraan qisooyin aad u macaan badan oo cajiib ah.